guddiga nabadeynta uu hogaaminayay garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee gobolada SSC isla markaas ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay deegaanada Hurufadhi iyo Ceegaag kuna dhex jiray beelaha walaalaha ah ee Hagar iyo Hayaag ayaa maanta waxa ay soo saareen qodobo hor u dhac ah heshiiska beelahaasi warqadda ka soo baxday guddiga maanta oo ku taariikhaysan 20 bisha 7 ayaa u dhigan sida tan ujeedada ayaa lagu yiri warqadda go'aamo hor u dhac ah markaanu aragnay xilligan iyo xaaladan duruufeed ee ka jirta deegaanka dhibku ka dhacay markaanu la tashanay tolweynaha daneeya wada dhalashada iyo walaaltinimada tolka dhibku dhexmaray markaanu qiimeynay baahida loo qabo in jawi degan lagu qabto xaajada waxaanu go'aaminay go'aamadan hoos ku qoran lamber 1 in magaalada Hurufadhi ay ka caaganaato ciidamo urursan ee labada beelood ee Hagar iyo Hayaag lambar 2 waxaanu sameeynay guddi nabadgelyo oo reer Hurufadhi ah oo sugaya amniga iyo la socodka dhaqdhaqaaqa labada beelood lambar 3 gogoshu waxay taalaa magaalada Saacdheer waa gogosha nabadda ee beelahaasi lambar 4 muddada gogoshu lagu tagayo waa 7 maalmood oo ka bilaabmaysa maalinta heshiiskani la saxeexo lambar 5 waxaanu ka qabanay beelaha guddiyo u xaajeeya lambar 6 wixii aan ku dhamaan wada hadal iyo sulux waxa lagu galayaa shareecada islaamka lambar 7 waxaanu xukun iyo ganaax ka ratibnay ama ka soo qaadnay heshiiskan cidii jabisa waa heshiiskan warqadan haatan halkan lagu saxeexay cidii jabisa weeye baa ganaaxya laga soo qaaday labada beeloodba dil ninkii dambe ee dil geysta labada beelood waxa laga ganaaxay 50 halaad dhaawac ninkii dambe ee labada beelood kamid ah ee beel kamid ah qof ka dhaawaca inta maaragtay hawshan lagu guda jiro yana waxa laga soo qaaday 25 halaad oo ganaax ah xabad toogaal ah ninkii kamid ah labada beelood ee xabad toogaal ah rida balse aysan cid dilin yana waxa laga soo qaaday 15 halaad wixii weerar ah ee markaasi lagu qaado magaalooyinka beeshaasi labada beelood kala degan yihiin yana waxa laga soo qaaday 50 halaad ugu dambeyn ganaaxyada waxa wada bixinaya baa la yiri waa ganaaxa beeshaasi labada beelood ee isdilay mid kamid ah hadii ay heshiiskan jabiso ganaaxaas waxa wada bixinaya intii wadaagta ahayd ganaaxa waxa qaadanaya dibanahaasi dhibta loo geystay ciida dhacalkiisa leh ugu dambeyn warqadani ayaa markaasi labada beelood iyo guddiga nabadgelyada ee hogaaminaya garaad jaamac garaad cali ay isla qaateen ugu dambeynna waxa la filayaa in labada beelood toddobaadka soo socda ay u hoggaansamaan go'aamadani isla markaasina ergooyinka labada beelood ay iska xaadiriyaan